asalaamu calaykum khayarta meel baa joogtiin oo markale muuqaal cusub ku eegi doona wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo wax walba oo ku saabsan suuqa kala iibsiga Paris Saint-Germain oo dalab 120 milyan markan u gudbisay Napoli maharayna ay taageeyeen xilli ay Milan ay doonayso Gabriel Jesus Chelsea iyo Osmaniin iyo Napoli isfahmi waayay xilli Arsenal ay shakada soo gashay Chelsea oo saxiix ugu horeeyay marka gacanta ku dhigaysa Gunduzi oo kooxda Juventus ku wajahan xilli United iyo Real Madrid ay ku dagaalamayaan Antonio Silva Kimmich City iyo kooxo badan ayaa isku haysta xilli Fofana ninka lagu magacaabo ama Yusuf Fofana xiise uu ka heliyay Arsenal Bayer Leverkusen ayaa markaa gacanta ku dhigaysa Alex Garcia oo kooxda kubadda cagta Girona haddii aan muuqaalkeeshan oo la garay kanaalkana subscribe noo saar haddii aanu ku bilowno wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta kooxda kubadda cagta ee Chelsea nimanka la yiraahdo maanta umuur waaweyn ayaa ka cusub nimanka Chelsea la yiraahdo gacanta markan waxay ku dhigayaan laacibka lagu magacaabo Tosin Adebayor ninkan ayaa u ciyaaray kooxda kubadda cagta Fulham waa daafac dhexe marka macalinka lagu magacaabo Enzo Mascara saxiixiisa ugu horeeyay ayuu noqonayaa ninkan ayaa loo soo gacan gelinaya marka kooxda kubadda cagta Chelsea ninkan si free ayay ku qaadanayaan wararka ka soo baxay Ingiriiska waxay sheegayaan laacibkan isbuuca soo socdo inuu tijaabada caafimaad u marayo kooxda kubadda cagta Chelsea waana saxiix ugu horeeyay ee Chelsea ay sameynayaan xagaagan marka nimanka Chelsea ninkan la yiraahdo Tosin Adebayor gacanta ay ku hayaan marka nimanka Chelsea ay waxay taageeyeen dib u dhis weyn ayaa sameynayna anagu hal ayaa markan wax u keensanaynayo marka macalinka la yiraahdo Enzo Mascara ninkan haata waa loo soo gacan gelinaya marka Chelsea saxiixan ayaa markan gacanta ku dhigayaan marka nimanka Chelsea waxa la leeyahay ninkan haata si free ayay ku qaadanayaan oo dhinaca Fulham ayuu ka soo wareegaya wuxuuna imaanayaa garoonka caanka ee Stamford Bridge dhinaca kale nimanka Chelsea waxa ka cusub ninkii la oranayay Victor Osimhen oo muddada dheer ay daba taagnaayeen ninkan ayaana ah ciwaanka ugu weyn ee suuqa kala iibsiga ninkan ugu dambeyn iyagii Napoli way isfahmi waayeen way kala dhamaadeen Chelsea waxay rabtay sheeka in Romelu Lukaku iyo lacag yar ay iskugu daraan Napoli ninkan ay ka soo qaataan Napoli waxay tiri anigu nin dhan aan weynayo oo xil ciyaareedkii 30 gool ka badan dhalinaya miya Lukaku lacag yar ku dhaafsada sheekada ma soconayso 100 milyan hadaa miiska la isoo saareenin ninkan ma arkaysan Chelsea way warwareegtay waxay tiri ma warabna ninkan qorsheena mustaqbalka ciyaartoyda aan dhisayno kuma jiro anagu waxa rabnaa ciyaartoyda yara ku darso Victor Osimhen waa 25 sano jir oo kaliya marka waxa la leeyahay ninkan ayaa badadiisa weyn tahay marka qorsheena qayb ma ka noqon karo marka waxa la yiri hadaa cunugas waa lagu cunaa nimanka la yiraahdo Chelsea ninkan wuu rabay laakiin sheekadu way xumeeyeen oo ayagii Napoli sida ay ku kala tageen dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa dagaal adag la galaysa dhigooda Real Madrid xilli ay isku hayaan daafaca kooxda kubadda cagta ee Benfica ninka lagu magacaabo Antonio Silva laacibkan u dhashay dalka Portugal Benfica uu ciyaara ayaa lagu qiimeeyaa 120 milyan labada kooxood ee Spain iyo Ingiriiska kala dhisan ee Manchester iyo Real ayaana ninkan si saayid u baadigoobaya xilli kooxo kale oo qaaradda Yurub ay ninkan daneynayaan Manchester United ninkan ayaga ayaa kali ku hayo Real Madrid oo ayaanta daafac raadinaysa sheekadu ayaga haddana ay soo galeenba dhinaca kale Paris Saint-Germain waxay taageeyeen maharayno meelna uguma tageyna ka fasqiiliya waana qasab ina soo qaadana kooxda Paris Saint-Germain dalabkii hore 100 milyan ayuu ahaa waana laga soo diiday laakiin marka labaad ay dalab gudbiyeen oo 120 milyan Napoli miiska ayaa loo saaray lacagaha iyaga ayaana laga sugayaa jawaabta ay ka soo bixi doonaan haddii ay aqbalayaan iyo haddii ay dhihi doonaan maya dalabkan waa diidna marka Paris Saint-Germain iyagu waxay taageeyeen kama quusanayno ninka la yiraahdo Kvaratskhelia wiilka reer Georgia ayayna rabaan inay keenaan qalcadda caanka ah ee Parc des Princes marka Paris waxay taageeyeen marnaba kama quusanayno Kvaratskhelia dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa markan dardar gelinaysa sidii ku soo qaadan lahayd laacibka kooxda kubadda cagta ee Porto u ciyaara ninka lagu magacaabo Alan Ferreira kaas oo lagu qiimeeyay 70 milyan kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa haatan dalab 59 milyan markan u diraysa kooxda kubadda cagta ee Porto si ay ninkan u helaan laakiinse dalabka waxa la wada saadaalinaya inay kooxda kubadda cagta Porto soo diidi doonto maadaama ninkan Porto ay ku rabaan lacago inta Liverpool ay wado ka badan ay ku raadinayaan marka Liverpool dalabka way ku tijaabinayaan oo waxay isleeyihiin haddii ay ku heshaan waa ka haddii kaleetana sheekadu dib laga saxo laakiin Liverpool ninkan ay dardar gelinayaan sidii ku heli lahaayeen dhinaca kaleetana kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa markan u dhaqaaqday laacibka la yiraahdo Victor Osimhen iyo Chelsea ayaa kala dhaqaaqay oo isfahmi waayay kadib Napoli iyo Chelsea markay kala qaateen safaradaha oo laacibkan la isku fahmi waayay laakiin Arsenal ayaa markan u dhaqaaqday
لاعibka la yiraahdo Victor Osimhen waxayna haatan contact la sameeyaan dhinaca Napoli waxayna rabaan inay ninkan kala wada xaajoodaan si ay ku keeni lahaayeen qalcadda Emirates Arsenal oo ugu jirta Kuriga weeraryahanno badan si ay ku heli lahayd ayaa markaan waxay helayaan Janis weyn oo ah inay weeraryahan weyn helaan haatana ku darso gacanta waxay ku haystaan Benjamin Sesko oo iyaga dhinacooda jira oo kaliya u dhiman tahay inay ninkan la heshiiyaan kooxda kubadda cagta RB Leipzigna ay iska tirtiraan oo lacagaha ay rabaan ay siiyaan marka sidaas oo ay tahay ay Janiskan haatan heleen inay Victor Osimhen soo qaataan marka nimanka la yiraahdo Arsenal ninkan ay haatan contact la sameeyaan waxayna rabaan inay ka soo qaadaan dhanka iyo Napoli marka Arsenal haatan sheekadu ayaga ayaa kali ku ah maadaama Chelsea ay ka baxday Paris Saint-Germain iyo kooxo kale tan sheeda iyo sheekadu kala socdaanba isla umuraha Arsenal qayb waxa ka kooxda kubadda cagta ee AC Milan ayaa Arsenal ka doonaysa laacibka la yiraahdo Kiwiro kaas oo u ciyaar kooxda kubadda cagta Arsenal daafaca ayaa markaan laga raadinayaa dhanka Italy kooxda ka dhisan ee Milan ayaana raadinaysa dhinaca kale isla umuraha Arsenal qayb waxa ka Arsenal ayaa markaan rabta baahida khadka dhexe inay daboosho maadaama Thomas Partey oo ka dhaqaaqayo qalcadda caanka ah ee Emirates Stadium marka waxay doonteen xoog weynaha kooxda kubadda cagta ee Monaco ninka lagu magacaabo Yusuf Fofana ama Fofana Yusuf sida doonta adi Yusuf Fofana la yiraahdo ninkan Yusuf Fofana ay rabaan markan inay soo qaataan kooxda kubadda cagta Arsenal ninkan ayayna haatan kooxdiisa wada xaajoodii la bilaabeen marka ninkan ay rabaan inay bedelka laacibka lagu magacaabo Thomas Partey ay ka dhigaan sidoo kale kooxda kubadda cagta Arsenal waxa iskaga dhaqaaqaya Gabriel Jesus ayaa ku wajahan inuu bedel u noqdo Oliver Giroud oo dhinaca Mareykankaba u hayaamaba kadib markuu macsalaameeyay kooxda kubadda cagta AC Milan laacibkan ayaa Arsenal sidii loogu talagalay u noqon Arsenal waxay ka rajeynayeen ninkan kama aysan sida dareedina daaqad ayuu ka baxayaa weeraryahanno kale ay raadinayaan marka ninka la yiraahdo Gabriel Jesus dhanka iyo Milan ayuu ku wajahan yahay dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen ayaa gacanta ku dhigtay Alexis Cassier wiilka la yiraahdo oo kabtan ku ah kooxda Girona ninkan Barcelona ayaa raadinaysa laakiin markan kooxda Bayer Leverkusen ayaa ku guuleysatay oo heshiis gaariya 2029 ka sii xatay dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa markan dagaal adag la galaysa saddex kooxood oo kala Real Bayern iyo isla Bayern Munchen sababtoo ah Bayern Munchen waxay rabaan Kimmich inay haystaan City Kimmich ay xiiseynayaan iyaguna walow haatan ninkan mustaqbalkiisa maruu ka hadlayo yiri anigu wali waxaan ku sugnahay Bayern waan eegaynaa mustaqbalkayga hal sano contractiina uu idimaya marka City macninkooda Guardiola ayaa ninkan aad u xiiseynaya wuxuuna rabaa qalcadda caanka ah ee Etihad Stadium inuu ninkan keeno dhinaca kale Juventus ayaa u dhaqaaqday laacibka lagu magacaabo Kunduzi kaas oo hore ugu soo ciyaaray kooxda kubadda cagta Arsenal iyo Marseille haatan jooga kooxda kubadda cagta ee AS Lazio ninkan ay rabaan inay qalcadda Turin keenaan nimanka la yiraahdo Juventus marka Juventusna ninkan ayaa haatan baaday goob u goleenba hadii aad muuqaalkeesan wala garay kanaalkana subscribe noo saar ku baa